السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maantana waxa aan kugu soo gudbinayaa tobanka sirdoon ee ugu xoogay xeelada badan caalamka marka loo eego hawlgaladooda iyo falalka khatarta badan ay fuliyaan wadan walba waxa uu leeyahay sirdoon oo ay mas'uuliyadeedu tahay ilaalinta masaalixda dalkaas balse waxa jira wadamo caan ku ah lahaanshiyo hay'ado sirdoon oo aad u xoog badan waxaan ka soo bilaabaynaa lambarka 10aad ilaa aan ku geyno lambarka 1aad ee ah kan ugu xoog badan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelka Ilayska Dunida fadlan subscribe dheh gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub waxaa kaalinta 10aad soo galaya MSS waa hay'adda sirdoonka mukhaabaraadka dalka Shiinaha MSS waxa lagu tiriyaa hay'adaha sirdoon kuwooda ugu xoog badan waxaa kaalinta 9aad fadhiya DGSE idaaradda guud ee amniga dibadda dalka Faransiiska inkastoo ay marar badan ay ku guul dareysatay amniga dalkaas haddana waxaa lagu tiriyaa hay'adaha sirdoonka adduunka ugu xoogay xeelada badan waxaa booska 8aad soo galaya BND hay'adda mukhaabaraadka federaalka Jarmalka waxa ay mas'uuliyadeedu tahay ilaalinta ammaanka dalkaas waxa ay adeegsataa qaabab kala duwan sida ilaalinta internetka dhageysiga telefoonada dibadda ka imaanaya iyo soo galootika sharci darrada ah jaranjarada 7aad waxaa fadhiya ASIS wakaaladda sirdoonka Australia muhiimadeedu waxa ay tahay ilaalinta ammaanka dalkaas xarunteeduna waa magaalada Canberra booska 6aad garabka baaritaanka iyo dabagalka ee RAW Research and Analysis Wing wadanka Hindiya RAW waxaa la aasaasay 1969kii waxa ay aad iskugu hawshaa in malaayiinta qof ee kala luqadda iyo diinta ah ay xaaladooda la socoto sidoo kale waxa ay loolan adag kula jirtaa hay'adda sirdoonka ee dalka Pakistan lambarka 5aad muusaadka Israa'iil nidaamka Sahyuuniga Falastiin xooga ku haysta waxa uu leeyahay mid ka mid ah kuwa ugu khatarsan sirdoonka caalamka waxa ay nadaafaha dunida iyo gudaha Falastiin ka fulisaa hawlo ka dhan ah muqaawamada Falastiin gaar ahaan garabka hubeysan ee Hamas FSS hawlaha amniga federaalka Russia waa hay'ad sirdoon oo la aasaasay xilligii Sofiyeedka FSS waa hay'adda sirdoonka wadanka Russia waxa lagu tiriyaa hay'adaha sirdoon kuwooda ugu xoog badan lambarka 3aad MI6 Military Intelligence Section 6 wakaaladda sirdoonka dawladda Ingiriiska MI6 waxa ay ka mid tahay hay'adaha sirdoon kuwooda ugu xoog badan lambarka 2aad CIA Central Intelligence Agency wakaaladda sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA waxa ay leedahay 20,000 oo shaqaale oo rasmi ah sidoo kale waxa ay leedahay 1,000 qof oo si laba waji ah ula shaqeeya taas oo ah inay yihiin dad ka tirsan mukhaabaraadka dawladda kale laakiin si hoose ula shaqeeya lambarka 1aad waxa laga yaabaa inuu noqdo wadan aan la filayn lambarka 1aad waxa soo galaya hay'adda sirdoonka dalka Pakistan ee ISI waxa la sheegaa inay tahay wakaaladaha sirdoonka ee caalamka ka dhisan midda ugu xoogay xeelada badan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta fi amaanillah si aad u hesho xogo iyo macluumaad badan oo ku xiiso galiya hadda booqo oo subscribe dheh channelka Ilayska Dunida oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelkeena nagulana soo biir caalamkan cusub oo aad ka faa'iidi doontid xogo iyo macluumaad ka yaabiya